gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daawud Axmed Faarax oo dardar gelinaya habsami socodka imtixaanaadka shaadiga ee qaranka Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley waxaana uu kormeer kadista ku maray dugsiyada iyo goobaha ay ardayda fasalada afraad iyo sideedaad ay ku galayaan imtixaanaadka shaadiga waxaana gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax kormeerkaasi ku wehelinayay la taliyaha wasiirka waxbarashada barsaabka gobolka xogayaha fulinta gudoomiyaha waxbarashada gobolka Salaadiin uqal iyo wax garad kale waxaana mid iyo qof u baadheen ardayda galeysay imtixaanaadkani si loo hubiyo kalsoonida ardayda gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa sheegay in Gabiley ay kamid tahay gobolada ay ku kalsoon yihiin in ilaa hadda laga helin wax qisha iyo wax gardaamo ku ah imtixaanaadkooda ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada gobolka imtixaankuna si fiican buu noogu bilowday si hagaagsan oo marka aan dhibaato lahayn waxyaabihii laga baqayay oo dhan maanu arag goobtan aynu ku sugannahay waa dugsiga sare ee Qalax oo ay ku galayeen 6 dugsi arday ka kala socota 3 dugsi oo magaalada dibadda ka yimiday sida dugsiga Sheekh Umar Maarisi Macallin Barkhad iyo dugsiga Agabar afarta fasal ee kalena waxay ahaayeen magaalada Gabiley gudaheega gudoomiyaha Daawud waxa la gudoomiye waxa noqotay gudoomiyihii Geeska Afrika imtixaankiisa najaxo aad iyo aad baan ku qabaleenaa halka ka soo baaqoonay sokor waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta barsaabka iyo gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax waxaana ay yiraahdeen mudane gudoomiyaha imtixaanaad tacabka aad gashatay ardaydaadii maanta ardaydaadii qaar baa wasiira qaar baa agaasimayaala marka waxaan ku leenahay Jamhuuriyadda Soomaaliland baal dahab ayaad kaga jirtaa Daawud mudane gudoomiye imtixaankii gobolka Gabiley si nabadgeliyo ayuu ku bilaabmay si nabadgeliyana oo ku socdaa 4 degmo oo kamida gobolka ayuu imtixaanku ka socdaa 4 kormeer baan ku soo maray waxyaalaha qarankeena ku taabagalay waxa kamida in imtixaanaadku noqdaan imtixaanaad sira oo runtii mas'uuliyadii qaranka ay u haysteen ka soo baxdeen marka inaynu soo saarno dad tayo leh waa taaynu doonayna qarankeenu gaadho aynana ku dhaafnay Geeska Afrika iyo wadamada aynu la jaarkanahay intaba waxa runtii sharaf weyn ah maanta inaan la kulanay Gabiley oo runtii an ardaydu arday eegaya jirin Gabiley waan bariyaqaar waxaan ku xaman jirnay marba oran jirnay talow malaha sidan wax loo u socdaan waa sidee laakiin maanta waxaan runtii aniga yoftiga la socdo ka mid yahay la taliyaha wasiirka iyo madaxa saxaafadda ee wasaaradda waxbarashada runtii waxa weeyii si aad iyo aad loogu farxo ayaan runtii maanta Gabiley nooga muuqatay waxa kale wax la yaab la ah oo inta badan degmooyinka gobolada ka dhicin in mas'uuliyiintii qaranka u joogay ay ku wada mashquulsan yihiin oo dhammaantood ugu tagnay goobaha imtixaanaadka hadday tahay barsaabkii gudoomiyaha gobolka hadday tahay xogayihii hadday tahay taliyihii bilayska hadday tahay maayirkii yaani dawlad mas'uuliyiintii gobolka oo dhan waa arin aad gobolka waxa la karaa Gabiley waxay u soo jeesatay tacliintii waxaad markaa moodaa siday ahaan jirtay deena ku noqon doontaa haduu ilahaydmo mar haday mas'uuliyiintii qaranka oo dhani sida madaxweynuhuba ugu soo jeestay runtii tayeynta waxbarashada khudbadiisa waa dhageysanayseen waxay Soomaaliland u qalab qaadatay in markan la tayeeyo tacliinta wayaan la xaji telefishinka qaranka Gabiley.